mid ka mid ah beelaha ku dhaqan buuraleyda waqooyiga Ceerigaabo ayaa waxa deegaanka Xamaas ay ku soo gabagabeeyeen shirweyne muddo uga soconaya halkaasi waxaana munaasabadii xidhitaanka shirkan ka qayb galay Barasaabka gobolka Sanaag maayarka Ceerigaabo madaxda ciidamada iyo laamaha kale ee dawladda xubno golaha deegaanka Ceerigaabo madax dhaqameedyada beelaha qaarkood culimaawidiinka aqoon-yahanka dhalinyarada iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan kuwaas oo intii aanay gaarin madasha shirkan ku gabagaboobayay dadweyne tiro badan oo warkacay boqorka beesha shirkan qabsatay meel durgusan kaga hortageen una soo galbiyeen dhinaca gudaha madashii shirkan lagu soo gabagabeynayay halkaas oo ahayd goob ilyartus qabatay oo si qurxoon loo sii agaasimay waxaana furitaankii munaasabadan ugu horreyn ka hadlay Samadan Cabdulla Maxamed Cali ahna maayarka degmada Laasasur kaas oo ka soo sheekeeyay ujeedada shirkan iyo inuu ahaa shir dhaqameed taariikhi ah oo muddo dheer beeshan sidan oo kale goobtan ugu soo qabsanayeen iyo waliba go'aanadii ka soo baxay qaarkood oo halkaasi ka sheegay goobtan Xamaas oo geediwanaala waxa ay jirta in la isugu iman jiray sanadkiiba mar beesha Cabdixaamud oo ka kooban 8 ardaa muddada ay isugu iman jirtay markaan taariikhda dib u raaco 304 sano ayaa halkan laga dhigay oo kii 24 ka yahay shirkan wuxuu ahaa shir taariikh inta soo socda waa shir dhaqameed go'aamada aan ka soo gaadhnay marka ugu horeysa waa wax dawladda shucuurteeda iyo qorshayaasheeda iyo hawsheeda iyo sharcigeeda oo ku midaysan inaanu midowno sharciga islaamka oo aanu qaadano annagu waxaanu u go'nay haddii aanu nahay beesha Cabdixaamud oo u sheegayna oo naga go'aana inaanu sharciga islaamka qaadanay waxaanuna jecelahay beelaha nagu xidhan ee aanu dayskanay oo isku xidhiidsanay oo isku dhowna ee aanu iyo cuntaba wadaagno iyana sidaynu qaataan baan jecelahay qodobka labaad waxaanu qaadanay wixii maanta ka horreeyay inaanu beelaha nala ku dhow wixii aanu ku leenahay inaanu si asluub leh si nabadgelyo si sharafa aanu uga qaadanaa oo annana wixii lana ku lahaa si degdeg ah ku bixinayna midda xigta nabadgelyo waxaanu isku bogaadinay waxaanu isku waansanay waxaanu isku raacnay inaanu beelaha iyo dalka Soomaaliland iyo gudaha yagaba inaanu dhidibada u haasnaa nabadgelyada boqor Maxamed Nuux Aadan oo boqorka beeshan shirkan qabsatay oo munaasabadan ka hadlay ayaa ugu horreyn isagoo ka hadlaya dhinaca qodobada shirkan ka soo baxay wuxuu yiri farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu halka ku kulanno go'aamadii shirka waa la idin sheegay shir dhaqan buu ahaa siyaasadda xagga arrimaheeda waan iska yara xidhnay kolley halkan waa meel dhufaysa ilin baan gudoomiye laga galay ilin waa laga baxaa ateenaa male beesha waxay isla qaadatay muddo dheer bay ka fadhiday diinta islaamka inay wax iskaga bixiso way isla qaadatay khilaafaadkii iyo midnimadii reerkana waa la isla qaatay wixii turxaan bixinahaana waa la dhameeyey waxaa kaloo la isla qaatay oo ka tegay odayaashu ka tageen in loo qabtay magaha aan halka ka caddaynayo iyadoo gudoomiyihii gobolka iyo gudoomiyihii degmada iyo guddida nabadgelyada halka fadhido beelweyntii deynka lagu lahaana fadhido in lagu soo xereeyo magaha 45 casho gudahood ay ugu horeyso magtii Ibraahim ninkii fulin waayana sharciga lala tigsanayo beesha isbuureerku gudbayaa wuxuu qoosreerku inuu jiritaanka Soomaaliland yahay muqaddas waana gorgortan cidna kala galay waxa kaloo la mamnuucay wixii la oran jiray deegaanka ee ugu horeyso dhuxusho siidayada waa ka mamnuuc xukuumadana fasax baan u siinay tallaabo inay ka qaadato hadday dibasho la galayso waxaana mamnuucay cishiimada sida buurtan dhabarkiina hadda buurahan idin muuqda waxaan beer ahayn oo dhulka laga qaadi karaa waa ka mamnuucnay inaan laga dhaqangelisan marid ka codsanayna xukuumadaha wuxuuna boqorka beeshani ugu baaqay guud ahaanba beelaha Muuse Ismaaciil shir ay aayahooda kaga tashanayaan gogashiisana ay beeshiisu dhigtay deegaanka Xamaas waxa kale oo beeshu go'aan ku gaadhay waanu ka codsanayna oo codsiya oo isla gaadhay inay gogol u fadhisay gogol ay kaga tashanayso aayaheeda beesha Muuse Ismaaciil gogoshiina aan Xamaas dhignay waxaanu ka codsanaynaa madax dhaqameedka uqaasha inay naga aqbalaan codsiga naga naajiibaan marka la isla qaato oo nala ka aqbalo
ayaa muddada la ilaalin doona si wada jira kadib insha Allah waxaan rajaynaynaa in habar yoonis bari markaa looga gudbo laakiin hadda waxaan ku wargelinaynaa waraalahayo inay nala qaataan oo naga aqbalaan boqor Faysal Cismaan Faarax oo kamid ah madax dhaqameedyada beelaha habar yoonis bari oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa wuxuu yiri ilaahay mahadi waxaa maanta inaynu joogno goob aad u qurux badan oo lagaga dhawaaqayo in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay qofka joogaana waa guuleystay ka ku dhaqmaana waa guuleystay ka qaataana waa guuleystay waana idin la qaadanay waana idin ku mahadinaynaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa beeshu inay dhammaan dadka kale nabadgelyo ugu dhawaaqday dhexdeedana nabadgelyo ka qaadatay mashruucigeeda ku cunkaana soo afjartay cashimadii ina daashatayna iyana ka waantowday dadkana uga yeedhay taana beesha waan uga mahadcelinaya waxaan soo dhaweynayaa boqorka oo halkan kaga dhawaaqay iga horreeyay anigoo ku hadlaya madax dhaqameedka Muuse Ismaaciil iga maqan hadday tahay garweyn iyo hadday tahay reer Cawlba waa qaadanay shirka Muuse Ismaaciil iga gashaa dhigtay waana guddoon reer xabaasna waxa leeyahay Muuse Ismaaciil hadaa u yeedheen intii ku iskula wareegaysa wax ka weyn baa la idinka fadhiya diyaar garow badal u diyaar garooba wasiiru dawlihii wasaaradda caafimaadka xukuumadii Daahir Rayaale Axmed Cali Shire ayaa kadib in badan oo ka sheekeeyay goobtan lagu shiray iyo taariikhdii ilaa Sayid Maxamed iyo intii ka dambeysay ay ku lahayd geeyigii Soomaaliya waxa hadaladiisii kale kamid ahaa madashan quruxda badan ee Xamaas maanta aan joogno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aadna waan ugu mahadnaqayaa beelweyntan Xamaas maamulka gobolka iyo madaxdiisa madax dhaqameedka beelaha iyo intii ka soo qayb gashay dhammaan meeshan aynu maanta joogno horta waa xaruntii iyo xaafadii uu ka soo jeeday mujaahidkii weynaa ee halgamaaga ahaa ee Xaaji Aadan Fallo waa xaruntii daraawiishta oo sayidku ku calaalay markii ugu dambeysay uu sayidka la kiciyay meesha kaliya uu ku calaalay bari Soomaaliyeed waxay ahayd deegaanka deexdii badiyo daalo iyo dalaqyadii xeela dalkii aanu joognaba wixii laga duqeynayay dad badan baa hadda iska sheegta daraawiish laakiin waa xaruntii daraawiishta ee isticmaalku kula dagaalamay ee ay dayuuradu duqeysay dadku taariikhda waa la socdaan waa halka meeshii uu ka digay ee uu ka baxsaday meesha uu ka samri waayna deegaankan yahay waa meeshii ay ka soo unkantay hawlahan dambe abaabulkoodii iyo nabadeyntoodii iyo halgankeedii horeba shirkan kulliba anigu aan u soo jeedinayaa wax qabad in wax la qabsado beelnimadu haddii ay ku koobnaato dhaqankeeda iyo deegaankeeda iyo danaheeda guud ayna u daysato ciddii markaa loo idmaday siyaasadii iyo hogaankii inay u doorato ciddii wax qabanaysa waxba inagaga xumaan maayaan isagoo ka hadlaya dhinaca baahiyaadka deegaanka iyo xukuumadda xilligan talada haysana wuxuu intaasi ku sii daray shirkan waa shir beeleedo kollayba maayarkii ugu horreysay ee uu furay wuxuu yiri waxaanu ka doonaynaa wax badan oo maamulka iyo gobolka wixii nagaga maqan waa waajib deegaanka in hoos loo eego de kulli dawlad baynu leenahay oo maamul baynu waxba inoo dhisan taana kulli Xaaji Aadan Fallo wuxuu yiri awr baanu nahay idinku xariga haysaan lug hadda dib qaadaan shan baanu akhirayna hore hadda u socotaana weydina yeedayna xukuumadda rayta u baynu leenahay maayarka degmada Ceelgaawa Ismaaciil Xaaji Nuur isaguna munaasabadan hadal ka soo jeediyay oo hadalkiisa kamid ahaa runtii waxa weeye shirkani shir sanadla oo beeshu hadiya jaaraale ay halkan isugu timaado kulay dhowr jeer baan aniga leeyahay cusmay waanimi mar walba waxa ka soo baxay wax wanaagsan waad uga balyeelaya waxaan u gudbayaa diinta islaamka war diinta islaamka shir badan baan soo joogay ilaa sanad haddii lagu dhawaaqo oo lagu dhaqmi waayo ganaax bay leedahay arrintaas waa fariin jiray haddeer baa laga taxadaro yaan la fududaysanin waxaan leeyahay la rumeeyo waxaana ugu dambeyntii madashaasi ka hadlay badhasaabka gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salebaan Ramax oo isagu munaasabadan soo gabagabeeyay waxaan marka hore soo dhaweynaynaa beesha Cabdi Xaamud ee halkan maanta shirka ku qabatay iyo go'aamada ay qaateen oo ah jadiidin inay jadiidiyaan awalba waynu ahayn dad islaam baynu ahayn oo dad muslina baynu ahayn ay jadiidsadeen sidii ay maanta magaca oo runtii dhibaato badan ku haya gobolkan ay taxadir uga qaadan lahaayeen waxaan idinla qaadanay go'aankiinaasi inaanu soo dhaweyno oo awalba ahaa kii waajibkaynagu ahaa dawladda inaga saraysanaan ka codsanayna in la fuliyo dilalka taagan imika waan soo dhaweynaynaa go'aamada dhammaan tadaaqa ee qaadateen in la ilaaliyo deegaanka in lala dagaalamo xaalufinta runtii waa aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa buuraha horta cid yeelan kartaaba ma jirto cid ka sheegan kartaa inaanay jirin meelaha
beeraha ee dhul arko beereed beer waa laga bixin karaa laakiin buuraley gebigeedaba min galbeed ilaa bari waxa dastuurka inoogu qoran in aan cid sheegan karta ama cid ka sheegan karta aanay jirin cashiimada waa aafo waa dhibaato taala gobolka alxamdulillah hadii dadku dareemay waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo Odweyne News magaalada Ceeri Gaabo